أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal darsigeena diiniga ah oo kamida duruusteena ramadaaniyada aheeday waxa uu noqonayaa darsigii 18aad ayuu noqonayaa oo kamida duruusteena xiriirka aheeday oo bisha ramadaan aynu ku soo qaadanaynay. darsigan waxaan uga hadlaynaa hadii Ilaahay yiraahdo amuuro dhowrho markaas qofku markuu saa'im yahay laga reebay oo manhiyo canhu ah, amuurtaas oo hadii lala yimaadana waxyaabo badan ay ka ratibmayaan. ilaa soonka waxyaabo wuxuu iska leeyahay badan oo mubdilaad uu iska leeyahay. waxyaabaha soonka jibinayna gooniyeen soo qaada doona, laakiin hadda wixii wax kamid ah hadii lacala ay dhacaan waxa ka ratibmaya ayaanu soo qaadanaynaa. midalan hadda soonka iyadoo lagu jiro waxyaabaha soonka jabiya waxa kamid ah jimaaca ayaa kamid ah, oo iyadoo maalintii ramadaanka la joogo qof hadii uu jimaac uu sameeyo ama galmo uu sameeyo sida Soomaaliga loo yaqaan, soonki waa ka jabaya. ha ka jabee haddana waxa weeye arintaas dhowr arrimood ayaa ka ratibmaysa. waxa ka ratibmaya kafaaro ayaa ka ratibmaysa oo kafaaratul udma ah, iyo waxa ka ratibmaya maalintii inuu soo celiyo, iyo markaasi tacziir adow caamid uu yahay. hadduu hadda caamid uusan ahaynin hadda ma waa ku tagaynaa soonka ka jabi maayo. marka waxyaabaha hadda soonka jabiya oo la yimaado soonku ku jabayo jamaacaasa weyn oo ugu dambi weyn. markaas waxa la yeelay kafaaro leeyahay kafaaratul udma ama kafaaratu wiqaa'i ramadaan waa la yiraahdaa. arintaas haday lacala qof ay ka dhacdo wixii uu sameeyay iyo waxa laga doonayo axaadiis ka waramaysa iyo amuuro kaleentood ayaanu maartay soo qaadanaynaa. marka uu horeysa waxaanu soo qaadanaynaa حديث أو وريي صحابي جليل كهو ليراد أبو هريرة أرنتاس إسقو كورما يوحى أودهاي. جاء رجل أودهاي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله أيودهاي. وأودهاي أبو هريرة نين أيا النبي أيمد عليه الصلاة والسلام. وعلى شيء نين نين هير باديا إنه هاي oo la dhihi jiray Salamata ibn Sakhar la dhihi jiray ama Salman ibn Sakhar la dhihi jiray. waa ninkaas marka dhahay Ilaahay rasuulkiisa waa halaagsamay ayuu dhahay, oo waxa uu ka wadaa waxaan sameeyay ficil oo sababtiisa halaagaygu ku sugay. ilaa hadda ninkan warka waa sarbeebaya maxay yeelay waxaas waxyaabo markaasi xoogaa laga xishooda weey. nabi kaleey salaam markuu sarbeebay waxa uu dhahay wama ahlaka ka dhahay maxaa ku halaagay, waxaan ku halaagay maxay yihiin. markaas uu dhahay waqactu ala imraati fi ramadaan, haweentayda ayaan ku dhacay uu dhahay ramadaan dhexdiisa idoo la joogo ramadaan ay tahay ayaan haweentayda ku dhacay. markaas ayaaba waxa weey ramadaanka la joogay. وقاعا marka waxa uga kinaayuduha ya jaamactuha waan jamaacu ka wada. marka arintaas ay haysatee wax iga dhahay ayuu leeyahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam. arintaas markuu nabiga u sheegay kaleey salaatu wasalaam, nabigu waxa uu dhahay: hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, mahelaysa waxaad qoor ku xurayso qof adoonnimo loo haysto ina qofkaas waxa weeye qofkii sayidkiisa ahay
lacagtii soo aad ka iibisid lacagiyo xoolo waxay noqotaba ka bacdina aad qofkaas xuraysa ma heli kartaa kafaaradan marka waxa la yiraahdaa kafaaro oo markaas murataba waaye shaygan hadii la waayo ayaa shayga kale la aadaya marka adoonta waxa ayada ugu horeysa kafaarana sideedaba shayga ugu weyn oo markaasi mucdamka ah hadii la bilaabo waxay noqonaysaa kafaara murataba haddaan shayga ugu weyn aan la bilaabin waxay iska noqotaa mukhayyara sida maaragtay kafaaradan kafaaratul yamiinka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku sheegay suuratul maa'ida markana wuxuu dhahay adoon waxaad ku xoreysa ma helaysaa hawdha adoonkaas nin ha noqdo naag ha noqdo isku mid waaye qaala ninkii wuxuu dhahay marka la ma yow dhahay heli ma karo dhahay waxaan adoon ku xoreeyo heli ma karo nin waxa la sheegay faqiir ayuu ahay markaasuu nabigu dhahay alayhi salaatu wasalaam hadana فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ما ودا أيودا رسولك عليه الصلاة والسلام لضبلود أو حرير إنا صونته ما ودا وهي لمتها كفارة ظهار كهذا وشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا سورة المجادلة إلهي أوقضها سبحانه وتعالى لضبلود أو حرير هذا وحوي مالنا هذا كافكته قدالك صوب بالله بين نقونيسا وحي الله صوص ومي حتى وحبا كما جران وحا متتابعين شرد واي إني حريث مركز الله صوم لبداس بلو مركز رسولك عليه الصلاة والسلام هذا أدون أذن حري كرين ما أوده لبب بلاد وحرير إنا صونت قال لا فأوده هذا ما أوده لبب بلاد وحرير مسلوم كرو لو مركز حوده فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا مهري كرتا لحدا مسكين واحد كقودسه او مسكين كبا هل كومبو بدر لا سينايو فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا واحد لحدا مسكين عدسيسه مهري كرتا ايوه رسولك عليه الصلاه والسلام وماشى مركز ugu dambayso waay marka hore adoon la xureeyo هذا زمن كينان أدون لغا بحد لمايو قفوا هذه كفارة أو قلوء كفارة العظمى كو حاوية صونك أيا لغا بلاوة صونك مركو أودي وايو أيا مركا ساد عامك الآذية هذا نوحا أرنتاس لغا حكمنا يا قفك مركا سي كفارة دا سؤي كدعضي أو كفارة الولي هاي قفك هذا سيد أساق صوح أشيكته iyo sida asaga markaas uu yiraahdo loo qabanaya hadda qofkii illa yiraahdo ma ahan waad awoodi kartaa inta samay illa yiraahdo ma ahan asaga la warsanaya maxaa adoonka asaga iska warqaba rasuulku kaleey salaam maratibtan ayaa nabigu kaleey salaam ayuu la maraya mana dhahayo rasuulku kaleey salaam intaas ada waad awoodahay samay ma dhahayo waxa qofka loo qabanayo qofku soo asaga isaga waramo waayo لكن هذه أسباب سونك أوده ما أوده وليه إلهي بالله حساب سماه سبحانه وتعالى محايلة إنه مركز أو صومه واجب يقطع مركز دنا وحود هاي لحدا مسكين مقبوس سيكرتا مركي ليدي لا أيوه له الدنا ما أوده له ليش أوضا بيسي مركي لجاري وإستاجي قال وحود هاي أبو هريرة ثم جلس نين واسكفريس مركز نينك واسكفريس هذا واحد ميشاس ميل laga sii dhaqaajiyo male asagoo hal kifadhiya فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر رسولك عليه الصلاة والسلام وحال الله كيني علال او مركز تمر اي كجرته ايا نبي الله كيني عليه الصلاة والسلام اما قفة ايا مقتل اما الدنبيل والإرادة مقتل ايا زنبيل ايا والدها كله وهو مارته يا أبا علالك وحال قسم يا تمرته على من كذا قسم يا وعلالك وحن نقانه وهو قاذا شن إيه طبن سوسو قاذا سوس كنا وساد أكتين وحوي أفر مدواي أفر كومبواي مركا
waxa ku jira markaas waxay noqonayaan 60 muday noqonayaan waana waxyaabaha markaas loo dalbaayo 60 ka miskiin loo dalbaayo miskiinka mudaa laga siinaya marka nabiga kaleey salaam asoo saas u jooga ayaa araqaas oo beegiisa la og yahay calaalkaas oo qaada 60 koomba qaada Allah keenay nabigu markaas wuxuu dhahay kaleey salaam tasaddaq bi hada ayuu dhahay mid kan sadaqayso dhahay hadii aad maaragtay adigu waxba aadan haynin sadaqadan aniga lay keenay sadaqayso dhahay tasaddaq bi hada mid kan sadaqayso ayuu dhahay ninkii markii sidaas la yiri waa dhahay Abu Hurayra faqala ar-rajulu a'la afqara minna ya rasuulallah hadana wuxuu dhahay ma qof anaga naga dhibaato badan ayaa jira hadii anagaaba u baahan u dhahay saan u sadaqaysanayna u dhahay anagaaba u baahan meel kasta waa ka soo taagay a'la afqara minna ya rasuulallah u dhahay rasuulkiisu ya anaga naga dhibaato badan u dhahay intaan anagaaba u baahan fa wallahi u dhahay ma bayna laabatayha ahlu baytin ahwaja ilayhi minna madiina markaasi hareeraheeda oo dhan markii la isku soo celceliyo wax anaga maaragtay nooga dhibaato badan ma laha dhahay laabateynku waxa waaye laabadu waxa waaye ardun daatu hijaaratin wa yasuudin waxa waaye dhul oo markaasi dhagxaan madmadow iska leh xarana waa la shiil madow waa la dhahaa madiinana waxay ku aali jirtay laba maaragtay laabateyn laba shiil madoobay u dhaxaysay ما بين لابتيها أيو دهي لبدأ كون ما هنو دهي أهل بيت أحوج إليه منا أهل بيت أنك نقدر باتبدا موجود وضدك بلد كان دقن أنك أقول باتبدا نوده معناه هو كوذا والله يا رسول الله ليس في المدينة قوم أحوج إليه منا مدينة مجو وقون أنك نقدر باتبدا أرنتتا هل كاس مركو سو استاغي فالله كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدد انيابه رسول كانوا اسكن حريص بدناي او ادي ادو حريص بدناي نبي عليه الصلاه والسلام دوش ايوك قوا قسل رسول الى marka simciyadiisa ay ka muuqdaan ninka markuu arkay soo ula yaabay suba qaana waxa uu dhahay idhab la tago dhahay faadimhu ahlakaaga qoodi u dhahay iska qaadee feerkaaga qoodi ayuu dhahay rasuulku kaleey salaatu wasalaam marka sidaas ayaa ninkii la yiri laakiin hadda waa sidii arintu macnaha hadda waxa loola jeedaa la yiri qofkii haweentiisa ku dhaca oo jamaaca ama saqiirkeeda ramadaan asagoo caamid oo caalim ku ah xaaraanimada waxa waajib ku ah kafaara waajib ku noqonaysa sida hadda ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay kafaarada oo kafaaratul umma xadiiska annagu uu ku sheegay kaleey salaam qoor mu'minada in la xureeyo weey hadii la awoodi waayo laba bilood oo xiriir ayaa la soomayaa oo markaasi maalin aan la dhexgelinayn haduu awoodi waayo soonkaas waxa waajib ku noqonaysa 60 miskiin oo quusiyo miskiinkiiba hal koomba uu siiyo xadiiskaas oo waxa wari ummahaatu sita ayaa wari laakiin bal xadiiskan xukunkiisa adaan ku laabano ninkan hay rasuulku kaleey salaam wuxuu dhahay la tagow dhahay ee ahalkaaga qoodi hadda marka kafaarana waa tii lagu lahaay ee kafaaradii ma ka gudanto saasay u gudmaysaa mase kafaaradii waa lagu leeyahay ilaa waxa uu bixiyo ma jirtee marka uu horeysa intaana taas aanan aadin haweenta ayada la jimaaco see wax ka yihiin ayadana ma kafaara laga rabaa ma sawaaside khilaaf xagga culimada waa jira laakiin madhabteena imaam Shaafici wuxuu leeyahay maartay naagta kafaara laga dooni maayo maxay la amarka ninka kaliya iska leh imaam Shaafici imaam al-Awzaa'i rakalanto taasay qabaan laakiin jamhuurta hadda waartay muhaddisiinta waxay yiraahdeen kafaara taasoo kala ku waajibaysa maxay la jamaaci wax ku wadaagsatay
maalin laakiin inay soo qalleeyaan oo naagta laftirkeeda soonkii waa ka jabay inay maalin qalleeyaan horta taas waa ka dhaxaysaa wax khilaaf kama taagna maxaa yeelay riwaayad Abu Daawud tiisaa waxay ahayd wasum yawman wastaghfirillah inuu dhahay nabu maalin soon ilaahayna dimbi dhaaf weydii calaashan waxa weeye idoo bil ramadaan la joogo oo ogtahay ayaad maartay naagtaada u tagtay marka hadda wadigan ama jamaacaanu hadduu maalintii dhowr jeer uu soo noqdo oo maalinta ayuba waxa weeye dhowr jeer oo jamaacay haweentiisa waxa laga doonayaa hal kafaara laga doonayaa laakiin hadduu ayaamo oo jamaaco oo dhowr maalmood mid oo jamaaco waxa weeye markaas dhowr kafaara gelaysa oo maalmaha markaas cadadkooda sidaasna jamhuurtu way qabaan ولو إمام أبو حنيفة أوليه مركز التعدد كاس وحبا مارس يكون زيادة ميس لكن هذا قول الجمهور أي مركزها مهمة لين كان هذا مركز أصوان نحوهم كأهاي رسولك عليه الصلاة والسلام وحود هاي اذهب فأطعمه أهلك ودهاي لطق أيودهاي عرقك تمرت أي كجرت أهلك قوض يا ليلي هذا مركز واسدي هذا نبي وحو كوضا هالي عليه الصلاة والسلام حديث كان أذيك أيها قوت أباهن وهذا ما أنت إذن كاتبات إذن هيستا إيه أهل كاغا قوضي لكن مركاد وحشه كفاردي واجب يقوته ولا قادونيه نين كان مركا وحال يريد أهل كاغا قوضي بالي لكن سداس كفاردي كاغا بحي ميسو مركاد وحشه أيها إسكد يبيسا كفاردي ساسا la dhahay sidaasna waxa weeye inay tahay xukunku saas u yahay jamhuurta qaba culimada bacdigeedna waxay yiraahdeen maya kafaaradii waa ay ka gudantay oo arin asaga khaas ah ku ahayd oo nabigeena kaleey salaam waxa uu doono cidoo doono wax ku khasisi karaahe nabiga kaleey salaam asaga kaligiisoo ku khasisay maxaa yeelay waaba ka dhacaysa hay dheen culimada qaar kood maxaa yeelay mucsir weeye maadaama uu mucsir yahay waxba laga dooni maayo culimada sidaas qabto waa jiraan laakiin sida jamhuurtu qabto hadii waxa weeye waxba uusan iska bixinin kafaaradii sideedii ugu jirtaa culimada dhahaysa asagay khaas ku tahay dadkuna lama qabo kafaaradii saas ay uga gudantay ama waxa weeye maartay wayba ka dhacdo waa mucsir nin la yiraahdo culimada waaweyn oo la yiraahdo maartay Ciisa ibn Dinar oo maalikiyada ayaa saas qaba imaamuna Ashaafi'i labadiisa qowl midka qadiimkaani sidaas ayuu qaba laakiin midka raajix ah oo jadiid waxa weeye jamhuurtaas uu raacsay sidaas marka waxa weeye kafaaratu wiqaa'i ramadaan ayay noqonaysaa waxyaabahaas waa dhacaano ramadaanada su'aalo iyo waxyaabahaas waa la iska soo weydiiyaa maxaa yeelay dadka waxba la xiriiro shahwado maartay in qofka indhihiisa markaas indhasaabaysa oo markaas meel mahaaliga ku ridaysa ayaa dadka la xiriirta hadii marka waliba dadka shabaabta ayay u badan tahay waxa la rabaa marka oo arintaas xukunkeeda ay tahay qofku hadii waxa weeye uusan iscili karin waa inuu naaftiisa uu ka fogaado waajibay ku tahay naaftiisa inuusan meelna ka taabanin oo markaas waxa weeye oo jirkeeda meel uusan ka taaban hadii ay dhacayso hadii naagta uu taabto inuu ku dhici karaayo ay dhici karayso xaraam weeye markaas inuu taabto laakiin qofkii waxa weeye naagta uu taabto iscili kara oo shahwa ku ridaynin waa u banaan tahay kaas xadiisaasna waa ku tagi doonaa marka halkaas waxaan ku soo qaadanay xadiiskaas dheer oo markaas la yiraahdo kafaaratu wiqaa'i ramadaan xukunkeeduna sidaas ayuu markaas uu noqonayaa markii la soo koobo xadiiskaas iyo dhacdadaas oo dhacdane oo umahaadku ay wada qorayaan dhacdadaasna daliil ayay u tahay marka haday arintaas oo kale ay dhacdo marjiceedu waxa weeye xadiiskaas loo laabanaya marka waxyaabihii manhiya maaratay la iska reebay oo umuurti markaas la iska reebay marka ramadaanka lagu jiro waxaan hadda ugu hormarinay oo soonka jibinayay
جماعي أو صون كنا جبناي يوهي كرتب ما يحوون كودنا وعنو كسوق هذا حديث كاسدير أيانو كسوق هذا أو الصحابي الجليل كهو نوري أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي أو نوري حديث كاسانو كسوق هذا مركا هل كاس درسي أو نفسي سيدي طبنات نوعه هل كاسو نوجوغيا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله